você. محمد أحمد ديسنة يو فيليس فارح تبيت توسكا فيليس هاي قربت ولا سكول دقيقة هاي أنفيل ستاديوم يا عيار حيسة بدن إن ماركتك شاهين أصلا ديار سدا إلى هيدي إدمه توجد كوريسي الأرسنال في عنا يلا قراعي مسيدي وكلين نقول دونتا دفاع عدم أتكادي وأوغاندونا إلى هيدي إدمه ونسوينا إدين كودن محمد أحمد ديسنة أنفيل ستاديوم يا مانتي لسل جوجا هاي ورنتي عيار آدي أدو حس بدن أيام سوينا والحرص عنا إن لقيت لي شن يهال يكون لما توريجي هره لكن waxaa malaysa xoogaa inay ka duwan tahay ciyaarihii hore sanadka inay ka duwan tahay Arsenal inay ku bilowdo si fiican ay 6 dhibic haysato ay rajeynayso inay 9 meesha ka qaado Liverpoolna waxaan la soconaa hal dhibic in horyaalka looga qaaday ay rabto sanadkan inay qaado laakiin waxaan sugaynaa Liverpool waxay ka socotaa waxaan ognahay Alexander Arnold iyo Robertson oo bidixdii mid ka dhilay aad u socdo Arsenal waxaan la soconaa inay Omobayangi iyo Bebe inay haystaan oo aad u orod badan haddii Bebe iyo Omobayangi ay labadaas ciyaartoy celiyaan ama ay mashquuliyaan Arsenal waxaan qabaa rajadeeda aad iyo aad inay u fiicnaa doonto marka ciyaar xiiso laan sugeynaa waaya Felix Farax arinta xiisaha leh waxay tahay maanta Lacazette in uu ku jiro kaydka waan lagu bilaabin saddexdan ciyaartoy afka hore ka ciyaarta Liverpool oo ka ciyaarta Sadio Mane oo kale intaas gool buu ka dhaliyay Firmino 8 mar buu la ciyaaray Arsenal 8 uu ka wada dhaliyay Mohamed Salah sidoo kale Arsenal intaas gool buu ka dhaliyay marka maanta maxaa laga filan karaa Arsenal waxaa laga filayaa difaaca waliba Sabelos wiilka Madrid aan ka soo deensanay inay booskooda ka soo baxaan David Luiz inuu keeno علشان experience badan inuu ku soo kordhiyo shaka kabtan buu hadda maaragtay Arsenal u yahay in maaragtay difaaca la adkeeyo sidii ciyaarihii hore laga qabsado kaleeto oo maayir 5 gool 6 gool Manchester City iyo Liverpool ay ka dhaliyeen horyaalka hore sidaas oo kale inaysan dib dambe u dhicin aan rajaynaya so weerarka waxa ka daran difaaca Arsenal waxa laga filayaa inay tahay markaan inay u diyaar garoobaan inaan gool badan laga dhalin taas waa hadaa fiirisid prediction oo laga sameeyay ciyaartu waxay ku dhamaan doonto in la barbardhac inay ku dhamaato inay u badan tahay sababtana waxa keenaysa difaaca oo la filayo markaan inaan gool badan laga dhalin Arsenal laakiin Felix hadii runta laga hadlayo Liverpool runtii koox aad iyo aad u dhisan weeye waxay qaaday horyaalkii Champions League qaaday Super Cup bay qaaday koox runtii aad iyo aad u adag laakiin arinta xiisa ciyaar baa socota Man United iyo Crystal Palace baa naqasaysa labiyo hal bay imika maraysaa Man United baa labiyo hal lagu leeyahay Liverpool garoonkeeda Anfield Stadium 2 sano iyo bar iyo dheeraad lagama badin marka soo lama oran karo Arsenal maanta runtii waa loo yaabaa record kasta oo yaala mar bay jabtaa waxa laga yaabaa maalintii jabileed inay maanta ay ka bilaabato Liverpool wax kasta dhici kara Arsenal waxa laga yaabaa isbedelkeedii laga sugaayay inay kooxaha waaweyn ay gaabka u dhaxeeya ay soo yareysay inay maanta ay bilaabato ayaa dhici kara kuleyba waxa favorite inay ciyaarta reeyso waxa Liverpool Arsenalna inay maartay meeshii ay ku dhameeyeen sanadka horeeta inay soo ku dhameeyeen yani waxa loo badinayaa inay badiso Liverpool ayaa favorite ka aniga hadii la weydiiyay qaasatan waxaan dhihi lahaa waxa reynaysa Liverpool laakiin se waa dhici kartaa in maartay in surprise ay noqoto Arsenal oo ay Arsenal يعني تام واحد كودا ليفربول نتا كوح هريالكي جابلس ليج قادي سوبر كاب قادي gurigeeda 2 sano dheeraan aan laga badin sanadkii dhaweeyta hal mar oo kaliya laga badiyay halka marna City ay ka badisay City oo waliba 4 jeer laga badiyeen ay koobka qaaday maxamed xadiisna ku raacsan tahay Felix in Arsenal maanta loo yaabo ma runtii waa u badan tahay in loo yaabo sababtoo Liverpool la soconaa weerarkooda xooliga ku socday Mane Mohamed Salah Firmino oo isku xiraha Robertson iyo Alexander Arnold oo geesaha ka socdo Van Dijk oo aan ognahay gadaal inuu adkeeyo laakiin Arsenal waxa u malaysay inay soo bedeshay difaacoodana ay fadhiisay Lacazette taasoo ay ugu tala gashay Bebe iyo Omobayangi inay aad u cararaan dhexdana ay buuxisay marka shax fiican ayuu la yimid wax walba ayaa ka imaan karo laakiin waxaan dhihi karnaa Anfield la jooga Anfield muddo dheer Liverpool loogama adkaanin laakiin amri wuxuu isku dayaa inuu ka adkaado kulleeyna waxba ka imaan karo oo waxaan ognahay Omobayangi inuu dhaliyo weyn yahay aad u orod badan yahay gool dhalintiis aad u fiican tahay Nicolas Bebena inuu cusub yahay laftiis aad u dheereeyo wax walba ka imaan karo marka waa ciyaar aad iyo aad xiiso u badan waayahay Felix Farax hadii aynu ka baxno Liverpool Chelsea maanta way badisay
taageera Chelsea qaarkood waxa laga yaabaa in aad ku sugahayaan aad iyo aad Frank Lampard maanta wuxuu helay 3 dhibcood ugu horeysay Chelsea marka ma la oran karaa Chelsea waa Chelsea-dii hore inkastoo Norwich ay maanta qatar la gashay 1-2 2 markii dambe 2-3 ku dhamaatay Chelsea aad baan maaragtay horta ugu faraxsanahay inuu Lampard uu aaminay ciyaartooyda yaryarka oo akademigooda ka soo baxeen ciyaartooyda like wiilka hore ka ciyaaro kaleete Abraham wujuud iska fariisiyo ayaga uu siiyay chance maxay ahayd markii loo gadaal loo laabto 4 Everton ay ku reysay Manchester United ciyaartaas ciyaar waxay ahayd aad u wanaagsan in 4 looga raayana ma ahayn markii la ciyaareen Liverpool midweek ay la ciyaareen waxay isla tageen penalties sababtan waxa keenaysa Liverpool oo kooxda aragtay aad u adag inay cagta u saareen marka waa soo dhaweynaynaa because annaga horyaalka dan waxa ugu jirtaa inay tiimamka waaweyn ay xoog ay maaragtay ciyaaro fiican oo awood leh ay sameeyaan si maaragtay oo attractive u noqdo ee liigana marka wax lagu farxay ee 3 dhibcood ugu horeysay Frank Lampard inuu soo hooyo maanta Chelsea waxaan ka filaynaa ilaa iyo booska afraad inay xato gasho si kasto oo maaragtay la leeyahay ma ku dhameyn karaan haddana sanadka hore taba Chelsea waxa la lahaa kuma dhameyn karaan 4-3 ku dhameeyeen marka hoos ma la sahlan karo ma la yareysan karo Chelsea waa Chelsea waayahay waa maasanta maxamed deysana Old Trafford ciyaartii ka socotay ilaa iyo hadda wayba dhamaatay waxayna ku dhamaatay 2-1 oo Crystal Palace ay badisay Man United gurigeeda maanta lagaga badiyay waliba waa intaas oo sano waxaan la soconaa in Crystal Palace labada ciyaar ugu horeysay laftooda laga soo adkaaday oo marka culays xoog leh ayaa saarnaa Crystal Palace Man United waxa malaysaa Wolves inay ka soo ay barbardhac ku mareen laakiin gool kulaad oo ka qalday ciyaartooyga weynaa Baqbo ayaa gool kulaad ka qalday taasoo social media aad loogu caynay maanta marka kalsooni weyn ay haysteen gool laga hormaray saacadii ugu dambeeyay barbardhac ay galeen laakiin nasiib xumo saacadii u dambeysay ayaa laga dhilay Palace waxaan la soconaa inay difaac gelida aad iyo aad ugu adag yihiin weer celintoodan aad iyo aad u fiican qaasatan anti Towson iyo ciyaartooyga kale Saha laftigooda marka waxaan dhihi karnaa waa guul darro ku dhacday Man United taasna dib u dhigayso midii social waayahay Felix Farax Cabdi Geesi saaxiib badan oo Chelsea taageersan maanta faraxsan baa khadka ku jira Man City hadayna ka hadalno wax yar Bournemouth bay la ciyaaraysaa maxaa laga filan karaa mar kastaba Manchester waxa laga filanayaa inay rayso shock bay ahayd in maalintii dhawata Far uu goolkii uu ka rool aad gareeyay waxay rabeen inay maaragtay 6 dhibcood ba haystaan waxa moodaa horyaalkii cusub inay rabaan inay game kasta ay raayaan waxaan ka filanayaa calashan game-ka qaarkood game kasta ma rayn karaan laakiin markasta Man City waxa laga filanayaa inay rayso so Chelsea fans niyadda hees ka jibinina maxay ahaatay season fiican ba heli doontaan because programka dadka ku xiran oo dhan mar walba waxay u badan yihiin basa u maleynaayo Chelsea fans koox kasta adinkoo dhan soo dhawaada maxay ahaatay mar dhow ayaan waxaan gali doonaa programka tabinta tooska ayaan bilaabi doonaa ilaa idmo waa Liverpool iyo Arsenal iyo Anfield ilaa idmo soo dhawaada aad iyo aad oo mahadsantihiin nala socda haddii aan laydmo goor dhow waad mahadsantihiin dhammaantiin sida qiimaha leh aad uga soo dhiibanaysaan farcelinta fariiniina ma akhrin karno laakiin aad baa idin salaamaya saaxiibada dhammaantood